mudane musharax waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo ma tahay nin ku xukumaya dawladda Puntland shareecada islaamka ama kitaabka iyo sunnadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan u sheegayaa dastuurka Puntland wuxuu ku qotomaa shareecada islaamka waxaana ku qoran waxa xeer ah oo ka soo horjeeda shareecada islaamka inay yihiin null and void inaysan jirin baa ku qoran sidaa daraaddeed Puntland sharci islaamka khilaafsan ama kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga ka soo horjeeda sallallahu alayhi wasallam lama keeni karo lamana fulin karo marka shareecadii baaba socotaba waxa lagu shaqeynayaaba wadanka ha la hagaajiyo amniga ha la ilaaliyo dhaqaalaha ha la kobciyo musuqmaasuqa ha la diriro ummadda ha loo nusreeyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri iimaanku waa 67 iyo dhowr xubnood ama 70 dhowr xubnood wuxuu yiri waxa ugu sareeya فعلاها قول لا إله إلا الله وحاوقص الرئيس إلا يرهد لا إله إلا الله وحانا وقوه سيسا إمادة الأدى عن الطريق طريقة أولاقا هذا واحد دبايا مركا وقاذا وشريعة نينكا دادك وحق صوري شريعة دي بوضا نينكا أمنيكا إلاني شريعة دي بوضا معالك دادك وحبري شريعة دي بوضا شريعة وحا لاقون وننشيبك كتشرة وعندنا إيسان قرانينين وكلقوا يقانا ماها شريعة الإسلام كأصل نواه إيضا كودق مينا وانا كودقنا annagu haddaan nahay shacabka reer Puntland waxa wadnaha naga qabatay xiriirkan u jarnay dawladda federaalka waxaan rabaa markayna murashaxa weydiiyo Puntland iyo federaalku dabcan sida ognahay ma aha sida dawladda Mareykanka iyo Shiinuhu qofka murashaxa waxa lagu xuuxiyaa xamar baa laga soo diray iyo dawladda federaalka taageersan marka waxaan rabnaa inaan ku weydiino shacabka Puntland dhalinyarada iyo aqoon-yahanka anoo afkooda ku hadlaya waxaan rabnaa oo murashax walba ama madaxweynaha Puntland ka rabnaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho dawladda federaalka mudane murashax ma naga ballan qaadaysaa inaad ku shaqaynayso rabitaanka iyaga oo aad fulinaysid codsiga iyaga ah inaan mar dambe maqlin xiriirkan jaray iyo dawladda federaalka cidna lama hadli karto su'aasha labaad iyo su'aasha saddexaad waxay ka hadlayaan xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka maxaa ka qorshaysan anigu marar badan baa arinta ka hadlay Puntland waxay ahayd meeshii Soomaaliya laga asaasay waxay ahayd meeshii dawladda federaalka laga asaasay dhaqaalaheedii baa lagu bixiyay madaxda maanta qaranka ee jooga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanku waxay ku hoos fadhiyaan waxay ku dul shaqaynayaan 2,000 ama 3,000 oo dhalinyaro oo Puntland ka tagay oo u tagay caalanka Soomaaliya inay mar labaad filla Soomaaliya ka taagan khilaafka maanta taagan intiisa badan waa khilaaf shakhsiya weeye waa la iskhilaafi karaa waxba la isku qaban karaa dawladda inagu aynu horseedka ka ahayn oo nidaamka federalismka ku dhisantay oo dhiigeennii aan gelinay iyo inagu xiriirka ma kala goosan karno bottom line ka weey laakiin waa isqaban karnaa waxbaan ku kala duwanaan karnaa xaq baan nooga maqan wax alla waxay dawladda federaalka leedahay masaxba maaha kulligiis wax alla waxay Puntland sheeganaysaa masaxba maya maaha hal midaal baan siinaya madaxweynaha xilka hadda haya markii uu anigu aan golaha wasiirada ku jiray waxa soo baxday inuu rabo madaxweynuhu inuu daabaco lacag arinta waa kala hadlay waxaan ku madaxweyne lacag ma daabici karno waxayna u daabici karinin dastuurka Soomaaliya oo Puntland qayb ka tahay wuxuu siinayaa lacagta daabicidda amniga arrimaha dibadda dawladda dhuxu siinaya talaan ku leenahay laakiin dawladda dhuxu siinaya lacag ma daabici karno waxa laga yaabaa inay ka mid ahayd waxyaalo ugu waaweyn aniga madaxweynaha isku qabanay inaanan lacag daabici karinin dhaqaalihii ka imaanaya meel ka yimid inaanan aqoon dawladda federaalka waa la xisaabtamaynaa xaqaan ku leenahay waa ka raasanaynaa waxay ku qaldantahay waa ka toosinaynaa laakiin Puntland caqabad kuma noqon karto dawladdii Soomaaliyeed iyadoo ay dhisay xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn iyo wax alla wixii khilaaf la xaliyaan ka shaqaynayna labadaas su'aaloodna saasaan u daynaya su'aasha labaad anigu waxaan ahay macallin jaamacadda Bariga Afrika qaybta Boosaaso dadka halkaan fadhiyana waxay u badan yihiin arday wadanka wax ku baratay mudane madaxweyne haddii ilaahay xilkan kugu guuleeyo annagu ku weydiin mayna transparency iyo accountability waayo sheekheennii baa tahay oo khadiibkii
waxaan rajaynaynaa in halkaa ka roon tahay laakiin waxaa dadka wareerisay madaxweyne kasta iyo wasiir kasta inuu shaqaalihiisa dibadda ka keensado oo dad awooda inay shaqo ka helaan meeshay joogaan shaqo labaad uu siiyo mudane musharax dadka halkan fadhiya oo waddanka ku nool oo qurax joogga ah oo duruuftaa la socod wax ku bartay ma u oggolaanaysaa inay dawladdaada ka shaqeeyaan aad iyo aad baa mahadsantahay su'aasha saddexaad waxa weeye ma shaqaalaynaysaa dawladda dadka waddanka jooga waxaad mooddaa inay bilaabatay colaad ka dhaxaysa qurba joogtii iyo qorax joogtii soo sidaa ma war colaaddaasi ma jirto colaadda ayaan la samaynin dadka dibadda joogaahi soomaaliya waxay u soo diraan sanadkii 1 bilyan iyo 800 milyan oo dollar 1.8 bilyan dollar bay soo diraan macnaheedu ma aha inay iyagu xaq u leeyihiin inay dalka maamulaan inay wasiirada noqdaan inay madaxda noqdaan waa run oo waxaan u baahannahay dadka dalka jooga garanaya ka soo shaqeeyey dhaqankeeda yaqaana amnigeeda yaqaana waxgaradkeeda yaqaana culimadeeda yaqaana caamadeeda yaqaanahay dalka inay u taliyaan khaladaadkay ka mid tahay dadkaasi markii ay talada la wareegeen inuu khalad badan dhacay anigu arrintaa waa baalansi garaynayaa qofkaan uga baahanay qurba joogtu dalkay ka tirsan yihiin waa ka qaadanaynaa laakiin priority iyo ahmiyadda waxaan siinaynaa dadka dalka yaqaanay waana mid annaga oo dalka joogna aan isu soo sharaxnay maxamed cabdinuur waa mid uu isu soo sharaxay soo ganacsadaha siyaasi ah waa mid uu ereg uga shaqaynayo waxaan rabnaa dadka waxna tarayahay dalka inay ka shaqeeyaan waxaa jira meel qurba joogtu wax ka qaban karto waxaana ugu muhiimsan waxa weeye maalgelinta waddanka shaqo abuurka iyo wixii la mid ah marka hore mudane musharax ducaan kuugu bilaabaynaa hadafkaaga wanaagsan iyo maarta yoolkaaga iyo qorshahan aad noo soo jeedisay meesha aad kaga madha dhalin lahayd horta allah ku gaadhsiiyo taasi waa duco weeye xagga su-aasha haddaan u noqdo wax badan oo loo baahan yahay maanta puntland baad noo taxday hadday noqoto kala bixidda awoodaha sixidda dhaqaalaha sarraynta sharciga musuqa doorashada cod iyo qof sugidda xuduudaha maamulka baahsan iyo rajada shacabka puntland su-aasheedu markaa madaxweyne waxay tahay intaasi waa in qof kastaaba afka ka odhan kara laakiin ficliyan marka la qabanayo waa lagu guuldarraysan karaa haddii aad intaa aad iminka noo sheegtay ilaahayba kuu guuleeyo aad ku guuldarraysato intaadan wakhtiga naga ridin kursiga ma wareejinaysaa mise adoo intaaba ku guuldarraystay baad mar dambe waxaadna odhan doontaa waxaan u baahnahay 5 kale oo dambe abwaankuna sidii buu isla gabe u tirin doonaa oo odhan doonaa cabdi wali xaal qaado waxaad noo sheegaysaa sidee u fulinaysaa maxaanu kugu aamini karnaa waxaad igu aamini kartaa inaan dalka joogay inaan ka soo shaqeeyey anigoo shakhsi ah anigoo shirkada anigoo wasiirah anigoo tartamaya bulshada puntland waa ay taqaanaa waxay iga fili kartana way og tahay oo shaqadan soo qabtay ayaa markhaati u ah su-aashaa waxaa la weydiinayaa ninka maanta soo degay ee puntland weliga aan ka shaqayn ee raba inuu tartamo oo madaxweyne ka noqdo ama wasiir ka noqdo su-aashaa ha la weydiiya laakiin aniga inta ila midka ah oo dalka ka soo shaqaynay inaan waxaanu sheegnay fulinayno waa cadda su-aasheeda labaad waxaa weeye puntland waa la isku darsaday waxbaa la isku darsaday laakiin wax isku darsiga la isku darsaday wuu lumay hadda puntland way kala laalaadaa ma ku soo celinaysaa puntlandtii wax isku darsatay dib ma u soo celinaysaa oo puntland loo siman yahay oo laga maaragtay loo siman yahay ma keenaysaa aad mise midda kala laada unbad adiguna wax ku sii hoggaamin doontaa qaab dhismeedka oo kale khalad badan baa ka jira qabaa'ilo fara badan oo aan baarlamaanka waxba ku lahayn baa jira qabaa'ilada aan baarlamaanka ku lahayn sidoo kale waxay ku yar yihiin fulintay ku yar yihiin halkaas cadaalad ma ka abuuraysaa oo qabaa'ilada faraha badan ee laga tegay ee baarlamaanku gaari waayey dowladda aad dhisayso
tixgelin ma ka siinaysaa aad baad u mahadsantihiin puntland sidee wax loo wadaagayaa 66 xubnood oo baarlamaanka ah oo qabaa'ilka aysan ku dhammayn baa wax maamulaya awoodihiisu ma dhammaystirna gobolladii ma wada dhisna maamulkii ma wada gaar arrintaa run weeye waa arrintan ka hadlaaya caawa dhan oon lahaa federaalismka waa inaan inagu bilownaa ummadda puntland waxaan u ballan qaadayaa 2 shay midkood waxaan u ballan qaadayaa midda koobaad inaan puntland gaarsiiyo in qof walba codkiisa uu ku doorto madaxdiisa ballanqaadka hoos baan ka xariiqaya haddii sidaa sheegtaan aad tidhaahdeen hadday suurtogeli weyda ka waran baarlamaanka waa la furayaa oo 66 ma ahaan doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu والسلام يا مدحنا ماشي اسكوتمي وجوهر مدن مشرح علي حاج ورسمه iyo maamulka jaamacadda iyo martida sharafta leh yaardada dhamaan haddii su'aasheeda gudaha galo waxa weeye mudan musharax waxa la sheegaa inay tahay dhalinyaradu 70% dawlad kasta oo la dhiso markii la soo dhiso oo aqoon-yahaniin bedel ku leeyahay aqoon-yahaniintaas waxa laga yaabaa in laga hormariyo dad jaahiliin oo aan wax aqoon lahayn xirfadaha loo diriyana aan wax xirfad aan experience ka haysan oo lagu geeyo waa reer hebel ama se ninkaan inaga isfignaa ama wasiir baa dhalay ama xildhibaan baa dhalay mudan musharax maxaa ka qaban doontaa dhalinyarada shaqo la'aanta ah